Good morning. Subax wanaagsan. Koofigina soo qaata. Maanta waxa weeyaan talooyin dhaxal gala oo ka caawinaya nolosha ilaa xad. So diyaar garow soo qaata waxaad cuntaan iyo waxaad cabtaan. Welcome back. Soo noqod wanaagsan dhammaan. Talooyinku waa waxyaabo qaaliya nolosha. Okay? Waxay Soomaalidu ku mahmaahda I think isaxa haddaan khaldanahay. qof wax ku siiyo wax badan baad aragtaa laakiin qof wax kuu sheega wax yar baad aragtaa. Okay? Talooyinkuna waxyaabaha ugu qaalisan ee nolosha la isku caawin karayo. Okay? So marmar waxaan jeclahay dhowr video markaan soo dejiyaba inaan ku soo diro mid talooyin cusub insha Allah oo qof kasta nolosha hadduu duruufahaasi ka hor yimaadaan talooyinkaasi ay ka caawin karayaan insha Allah inuu ka gudbo. So diyaar garooba iyo talooyin qurux badan oo qaaliya. Okay, talada maanta ugu horeysa waxa weeyaan markaad carooto. Haddaad carootid ood qof isku xanaaqdaan waxa fiican markaad carooto inaad xasuusato in caradu ay qofka ku kalifto inuu go'aan khaldan oo fool xun u qaato. Okay, caradu taasi ka keenaysa. So ku dadaal mar allaale markaad carootaad si xun u carootaad qof isku xanaaqdaan inaad aayar qolka ka baxdo meesha iskaga tag afkaaga ku xidhan meesha iskaga tag inta aanay kaa soo bixin ama kaa dhicin fal xun ama hadal xun oo aanad hadhowna dib u celin karin aanad waxna ka qaban karin. Okay? So markaad xanaaqdo walk away. Talada labaad waxay ku socotaa badanaaba dadka isqaba ayay ku socotaa. Bini aadamku waa u dabeecad inuu iska xiiso badan yahay. Okay? Dadkuna sidoodaba markay isku indhabataan waqti kasta la wada joogo waqti kasta maaragtay la wada nool yahay meel lagu wada nool yahay waxiisuhu waxaad moodaa inuu hoos u dhaco uu meesha yimaado caajis iyo boring. Okay? So dadka isqaba isku indha farabatay baynu ka hadlayna maaha dadka kala maqan because dadka qaar badan baa kala maqan oo iminka wali waxa loo badan yahay dadkii isqabina kala wadano joogaan siraarihii la soo raro Afrika jooga nimankii Yurub jooga ama vice versa iyo sida kale. Marka way fiican tahay guys dadka isku indha bata in waqti la kala yara qaato. Okay? Caafimaadka guurkiina ayay ku jirta xitaa wala soo kala yaranasta dadku markay isu soo noqdaan waxaad arkaysaan iyagoo aad isugu xiisay haddana oo isku faraxsan inay is arkeen. Xitaa marka guriga lagu wada nool yahay waxa la sameyn karaa gelin baa la soo kala yara maaragtay fakaak la kala hela. Alright? waxyaabo kale la soo kala yara qabta. Marka always ku dadaala insha Allah waqtina in la wada qaato waqtina la kala qaato miisaanka noocaasa waxa ku sii jiraya xiisihii oo insha Allah aan ku dhamaanay. talada saddexaad waxa weeyaan fiicanatan in lagu wada dhaqmo markaad wax qabanaysid ama wax bixinaysid ama qof wax u qabanaysid ha ku xisaabtamin marka waxa uu qabto faa'iidada igu jirta maxay tahay aniga igu soo noqonaysa. Yani qofkaas ha ka sugin intaad u qabatay bedelkeedii lagu soo celiyo. qofku markuu wax qabanayo ama cid u qabanayo waxa fiican inuu u qabto isagoo aan ku tala jirin maaragtay abaalkii la soo celiyo. Alright? Because waxaad qabanaysid wax kasta horta waxa loo qabtay dar Ilaahay abaalkii Ilaahay baa laga sugaa subxaanahu wa ta'ala. laakiin dad fara badan ayaa saa u dhaqma. Okay? farbaan kuu taagay adiguna ii taag. Alright? wixiina dhadhan ma lahaanayo la qabtay marka labada dhinacba ka wax qabanayo dar Ilaahay u qabo waxba ka sugan abaal qofka. Okay? markaas ayay wixii ma sha Allah qiimihiisa iyo quruxdiisuna insha Allah muuqanaysa. inkastoo fiican tahay dadku inay wada abaal yeeshaan oo u ogaadaan qofka. Okay? talo number 4 haddaad istiraahdid ummad hag oo horkac ummadda ha ku hagin rules ama sharciyo aad u adag oo dadkii ku dhalinaya stress fara badan. yani sharciyadaasaan idinku hagayaayo waa ka ama aabbo noqo ama hooyo noqo ama sharikad hag ama ummad hag
waxay doontaa noqoto mar haddaad ummad horkacaysid ha ku hagin ummaddii sharciyo adag oo dadkii ku niyadjab iyo stress iyo wareer ku keenaya waayo haddaad istiraahdeed taa ku hag sharciyada adag iyo ruleska dadkii way kaa harharayaan okay adigu waad hor socotay ummad ilaahay baa kusoo daba gashay oo istiri waxaad tahay hoggaan fiican sharciyadaada marka la arko in adig inaan dadkii kasoo baxan maalinba qof baa harhaya maalinta dambe aad soo jeesato waxaad arkaysaa ummaddii ku daba socotay wada hadhay cid aanay ka hadhin okay waayo waxa weye they couldn't keep up with your rules way ku adkaadeen sharciyadaadii way xamili waayeen so dadka waxa lagu hagaa sharciyo caqli gala oo macquula oo u cuntamaya okay faa'iidana ugu jirto absolutely okay talada kale waxa weeyaan markaad qof nacab tahay qof yacni nacayb u haysid maxaa dhaca qofkaasi mashquul ayuu maskaxdaadii buu yacni soo dhex degaa maskaxdaadii qalbigaagii buu soo dhex degaya sida guriga loo dhex dego maxaan uga jeeda waad ka fakeraysa qofkii waad ka fakeraysaa qofka waxaad ku nacabtay adiga yacni maba tihid xaasid ma tihid qof xun ma tihid qofkaasi wuu ku xumeeyey ma garatay si xun buu kuu galay xumaatadaa lagugu sameeyey waxay kugu abuurtay adigii nacayb aad u qabtid qofkaa soo nacaybkii iyo wixii unbaa maskaxdaadii ku wareegaya iyo niyadaadii okay macnaha taas waa maxay qofkii wuu kusoo dhex degay qalbigaagii niyadaadii ayuu qabsaday soo dhex degay waayo waad ka saari kari la'dahay okay taasina aad bay kuugu xun tahay adiga marka qofaad nacab tahay oo dhaqan xunoo ku xumeeyey soo dhex dejiso naftaadii marka guryaha sooma la kiraysto qofku markuu guri kiraysto hadduu yahay qof xun maxaad ku samaysa gurigana aad iska leedahay soo kama saartid guriga soo looma diro warqad notice oo layaa guriga iga bax taariikhdu markay saa tahay qofkan maskaxdaadii iyo niyadaadii dhex degayeen qabsadayna u dir okay notice u dir uu kaga baxo maaha notice runa yacni adiga dhexdaada ka saar okay ka saar maskaxdaadii iyo niyadaadii waxaad tidhaahdaa warqad u qor waan ku cafiyeeye iga bax caqliga iyo qalbiga maxaa looga jeeda macnaha hadalkaas waxa weye saamaxo siidaa waa lagu xumayso maaha saamax ilaahay ku reeb siidaa saasaad kaga erida maskaxdaadii iyo niyadaadii aad ugu qortayna cafis iyo saamax waayo qofka ku xumeeya waa la wanaajiya okay hadday ku xumeeyanna waxba kuumay geysan iyo kaas xumeeyey so haddaad qof nacab tahay maskaxda iyo qalbiga yaanay kaa qabsan ka siidaa talada kale waxa weeyaan dadku mar kasta waxay xasuustaan always waxay xasuusan yihiin waxay iyaku bixiyeen ama waxay qabteen waxay bixiyaan dadku badanaaba uma fiirsadaan waxa la siiyo ay helaan kusoo kordha okay waa xisaabtanka waxa lagu siiyo iyo waxa aad siisid dadka okay dadka xisaabta waxay bixiyeen unay u qoran tahay okay ila joojiya u fiirsada inta idinka laydin siiyey haddaad run u fiirsato arrinka waxaad ogaanaysa in adiga waxa lagu siiyey ee ku soo galay ay ka badan yihiin adiga wixii kaa baxay ee aad ummadda siisay waayo adigu hal qof baa tahay ummadoo dhan wax ma siin kartid laakiin waa laga yaabaa 100 qof oo aad taqaanay inay wax ku soo geliyeen noocay doontaba ha noqotee talana ha ahaatee okay adigu laakiin lagama yaabo 100 qof inaad wax siisay soo u yara fiirsada miisaankaasna adduunka yaanu khalkhalin siinta iyo qaadashadu markasta adiga waxay ku soo gelayaa ka badan ilaahay intay naga soo gashaa baanaynu xisaabin karayn banacam soo bini aadam waxay naga soo galaa soo waxaynu bixinaa si kasta uu u badan yahay uu yar yahay okay talada kale waxa weeyaan markaad wax rabto waa siyaasad tani la rabo in lagu noolaado khayr qabto aad u fiican u faa'iido badan markaad rabto inaad wax lagu qabto halkaad codsan lahayd aad hadal ku codsan lahayd waxaa ii sameeya ama waxaa ii qabta ficil ku keeno kaga horey adigu dadkii oo wixii aad adigu niyadda ku haysan lagu qabto iyo qofkaad rabtay inuu kuu qabto adigu horkeeno u qabo yani indirectly
bilaa kelmado iyo hadal ficil wixii ku tus qofku wuu fahmaya adna wuu kuu qabanaya tusaalayaal baan idin sheegaya taariikh kugu qaaliya okay haddaad rabtid in lagu xasuusto tusaale yar baynu kaga soo qaadanaynaa maalintii dhalashadaadaabad rabto ninkaagu inuu xasuusto okay ama ninow haddaad jecesha gabadhaada inay xasuusato taariikhdii dhalashadaada adigu teeda xasuuso adigu gabadhay tii ninkaaga xasuuso u qabo wax okay isna danbuu u xasuusan kaagii haddaad rabtid masaaj inuu ninkaagu kuu sameeyo adigu u horsamee waxaad arkaysa isagoo kuu sameeyey haddaad jecesha ilmahaagu inuu yareeyo tv daawashada adigu tvgaaga baktiyo yareed daawashadiisa example lead by example dadka waxa lagu hagaa tusaale fiican in loo noqdo okay adigu wixii horta samee dadku marka indhahooda u macallina hadalba looma baahna because hadalku waxa laga yaabaaba inuu iska yahay hadal iyo been iyo waxaan dhulka ka kicin laakiin ficil dadkii markaad wixii ku tustid dadkiina way kugu dayanayaan okay masha allah so intaas insha allah idinku daynaya talooyinka maanta ka faa'iidaysi fiican insha allah ilaa iyo videoga dambe aan isku arkayno maca salaama